ciyaarahayna ayaan geli doonaa waxaan ku hormaraynaa ciyaaraha suuqa kala iibsiga ayaan soo qaadan doonaa. Arsenal oo markaasi xaalad xun ka wajahayso qaabkii ay jadwalka ciyaaraha u ciyaari lahayd, iyo waxaan kusoo qaadan doonaa Saliba iyo Gabriel oo markaasi Arsenal u ciyaari karo haddii loo baahdo maadaama ay dhaawac kasoo laabteen. waxaa kaloo jirto in Manchester United war xun uu usoo yeeray, warkaas oo ah inaysan Champions League sanadka dambe ka qayb geli doonin sanadiin sidaana oo lala xiriiraya Manchester United, isagoo sheegay isbedel weyn inuu ku sameyn doono hadduu lacala tababaro u noqdo Manchester United. waxaan kaloo kusoo qaadan doonaa xidig muhiim ah oo ka dhaawacmay Manchester United oo markaasi kulamada xulka qaranka laga saaray, lagana yaabo in Manchester uusan u ciyaarin kulamada soo socda sida kulanka Liverpool. waxaas barnaamijyo kale oo markaasi ciyaaraha ku saabsan ayaan idinkugu falanqeyn doonaa halkan. barnaamijka Graham Elfogna gaarsiiye waxaa le Michael Owen wuxuu saadaliya leeyahay Arsenal inay ku guuleysan doonto Premier League sanadkan, ayadana oo kusoo dari doonaa. waad ku mahadsantahay la socodkii barnaamijka Goal Sports Melfog gaarsiiye siina share gareeya. waxaan ku hormaraynaa sanadiin sidaan waxaa laga yaabaa inuu Manchester United tababar u noqdo maadaama tababarahan ilaa 2021 uusan haynin wax koox ah, isagoo hadda dhahayo tababarnimada ayaan kusoo laabanaya. waxaana la sheegaya in Manchester United uu ka bedeli doono Erik ten Hag. waxaa laga yaabaa inuu Jarmalka u wareego haddii markaasi laga celiyo shaqada Manchester United. waxaa marka xigi doona in sanadiin sidaan oo yahay iyo Gareth Southgate labada dooq ee markaasi Manchester United haysato, walow leeyahay in Gareth Southgate aysan u badnayn inuu Manchester United tababar u noqdo, lagana yaabo inuu xulka Ingiriiska iska sii haysto. sanadiin sidaan ayaa loo badinayaa inuu markaasi tababaraha Manchester United noqdo, wuxuuna sheegay inaysan dhici doonin wixii Erik ten Hag markuu Manchester yimid dhacay oo kaleeto, asagoo sheegay in horumar weyn ku sameyn doono kooxda oo markaasi balaarin doono qaabka oo wax u dhigi doono ay noqon doonaan qaab fiican. anigu waxaan ahay nin guuleysta ah, mana ihinin markaasi doonayo in team jajaban oo markaasi hogaamiyo. wuxuu sheegay markaa inuu awood u leeyahay inuu teamka dhiso, waxa alle wixii u baahan suuqa kala iibsiga ciyaartooyda iyo waxyaabo alle waxa wixii oo markaasi teamka looga baahdo inuu asagu u madax banaanan doono inuu markaasi codsado. taasna waxaa leeyahay qalinka inay ku dugto ay u badan tahay. Alexander-Arnold waxaa leeyahay waa dhaawac, waxaan laga yaabaa kulanka Manchester United ee la ciyaari doona Liverpool inuu taam u noqdo. diyaar garow ayuu ku jiraa, waxaana dhici karto inuu markaasi kusoo laabto garoomada. Arsenal waxaa leeyahay kulamada jadwalka loo sameeyay weli way ka cabaadaysaa, waxaana leeyahay kulamo adag ayaa markaasi nagu soo wajahan. ciyaartooydana qaarkoodna way naga dhaawaceen, walow Gabriel iyo Saliba labaduba ay usoo kaceen Arsenal oo laleeyahay way ciyaari karaan kulamada soo socda, sida kulanka Man City ay la ciyaari doonaan axadda dambe oo markaasi ah kulan aad markaasi u go'aamin doono Premier League. isbedel weyn ay ku sameeyeen shaxdooda maadaama ay laba daafaco muhiim ah ay usoo kaceen, waana William Saliba iyo Gabriel Magalhaes oo labadaas xidig waa labada nin oo gadaal qaybta dambe kaga ciyaaro. marka isbedelkaas la arki doona. Bayern Munich waxay heshaan leeyahay rag dhaawacyo kaga maqnaa oo markaasi kulanka Arsenal ka hor oo 9 Abriil dhici doono ayaa dhaawacyo fara badan oo qabeen ay dib ugu soo laabteen leeyihiin. dhaawacyadaasna marka waxaa muhiim u noqon doonaan in Champions League oo muhiim ay u noqoto, waxaana ka mid ah goolhaye Neuer ayaa la filayaa inuu si taam ah buuxa ugu soo noqdo, waana ninka 37 sano jirka ah goolka qabta Bayern Munich. dhaawacii uu qabay waxaa leeyahay kasoo kabsanaya. arrintaasna waxay naxdin u tahay Arsenal maadaama uu goolkiibahan uu yahay goolkiiba qabiir ah, wax badanna markaasi ka qabtay Bayern Munich intii uu hayay goolka Bayern Munich intii uu hayay wax badan ka qabtay. waxaa gudbaynaa Kyle Walker weli waxaa leeyahay rajadiisu waa 50-50 maadaama leeyahay dhaawaciis weli halis ay noqon karaa, mana dhamaystirno oo si toos ah markaasi uguma soo laabanin oo waxaa laga yaabaa inuu kasoo kabsado muddooyinka soo socdo. ninka lagu magacaabo Erik ten Hag waxaa laga celinaya leeyahay Manchester United dhamaadka xilli ciyaareedkan. markii laga celiyana waxaa leeyahay waxay u badan tahay inuu markaasi Jarmalka iska aadi doono maadaama Jarmalka laga doonayo aadna loo danaynayo. marka waa arki doonaa iyadana wixii kasoo kordho haddii uu Jarmalka u wareego odagaasi. Michael Owen ayaa wuxuu leeyahay wuxuu socdaaleen ka bixiyay ciyaaraha sanadkan wax ku guuleysan karo Premier League, wuxuuna sheegay in naadiga Arsenal ay tahay naadiga kaliya ay ku guuleysan doonto Premier League, isagoo marka hore ku taageeray Liverpool inay ku guuleysato horyaalka Premier League. laakiin hadda wuxuu leeyahay Arsenal ayaa markaasi isagoo la hadlay Optus Sports meesha la yiraahdo ayuu wuxuu sheegay in si toos ah ay Arsenal ugu guuleysan karto, wuxuuna sheegay in kooxda ugu fiican ay ku guuleysan karto Premier League ay tahay Arsenal, waana naloo sheegaa mar walba. arrintaasna wuxuu waa xaqiiqo, waana waxaan isleeyahay waan aaminsanahay in xidigan in kooxdan Arsenal ay ku guuleysan karto, garaaci karto Man City iyo Liverpool inay ku garaaci karto ayaan aaminsanahay ayuu leeyahay. waxaana laga yaabaa in Arsenal ay noqoto Premier League kooxda ku guuleysato sanadkan hadda socdo maadaama saddexda kooxba ay isku dhagan yihiin. waan qabaa in Arsenal ku guuleysan doonto horyaalka ayuu sii raaciyay. Arsenal ayaa gashay fasaxii ugu horeeyay ee xilli ciyaareedka caalamiga ah sanadkan iyada oo fadhisa kaalinta koowaad ee kala sareynta horyaalka, waxaana ugu mahad celinayaan leeyahay kulankii ay barbaraha la galeen Liverpool, Man City iyo Liverpool halyaalka ku galeen ay leeyihiin arrin wanaagsan ay ahayd oo ay nagu soo korortay. arrintaas marka waxay leeyihiin sidaas daraadeed weli horyaalka inay 90% ku guuleysan karaan Arsenal ayaa u dhow.
arki doona Haaland asagana uu dhaawacan yahay wili kama soo kabsanin in markaasi uu si toos garoomada ugu soo laabto waxaana leeyahay xidigani wuxuu doonayaa in kulanka Arsenal ka hor inuu soo kabsado si uu ciyaartaasi qiimo ugu yeelo haddii lacala Haaland uu ka maqnaado Arsenal kulanka la ciyaari doona Man City waxay noqon doontaa dhaawac weyn wax goolka u dhaliya ayna weyn doonaan oo waxa wararku sheegayaan in markaasi dhibaato weyn ay ku noqoto oo isbedelka markaasi imaan doono oo weerarka kaliya oo Alvarez ninka la yiraahdo uu ku soo hari doono waxaa leeyahay waxaa la soo saaray in qaabka Euro ay ku ciyaari karto xulka Ingiriiska maadaama ay leeyahay ciyaartoyda in isbedel weyn ay markaasi shaxda ugu fiican ay soo bandhigeen waxaan leeyahay shaxdaas waxay noqon kartaa Kane Harry Kane weerarka ah Bukayo Saka iyo Phil Foden saddexdaas oo afka hor dheeli doono qadka dhexna Maddison iyo Declan Rice iyo ninka la Bellingham ayaa qadka dhex ciyaari doono waxaa kaloo gadaal ciyaari doono Trippier iyo Ben White iyo waxaa leeyahay Brentwaite ninka la yiraahdo waayo Ben White ma aha Brentwaite iyo waxa ciyaari karo Trowski iyo Alexander-Arnold iyo Bob waa shaxda ugu fiican leeyahay Ingiriiska ay Europe ay ku ciyaari karaan haddii lacala ay ku dheelaan waa sida markaas la sheegay waxaan arki doonaa marka wixii isbedel oo ka yimaado inta badan dadku waxay qiimeynayaan ay markaas suuqa aad uga hadlayaan in markaas ciyaartoy la soo iibsan doono kooxaha intooda badan ciyaartoy kala duwan ay doonayaan sida hadda Arsenal oo kale waxay doonaysaa xidig weeraryahan ah oo markaas lacag waxaana ka mid xidiga Arsenal si toos u doonayso xidigan lagu magacaabo Victor Osimhen oo ah xidig reer Nigeria oo markaas wacdaraha ka dhigayo dalka Talyaani gaar ahaan naadiga Napoli wararka suuqa kala iibsiga haddaan sii guda galno waxaa leeyahay Manchester United waxay markaasi qasab ku ama Real Madrid daaficida ay markaasi doonayaan Everton Gerrard ninka la dhaho Braithwaite oo 20 sano jir ah una dhashay dalka England Man City ayaa ku qasabtay Manchester United iyo Real Madrid daafaca kooxda Everton Gerrard Braithwaite oo 20 sano jir ah inuu markaasi ay suuqa ay dhigaan maadaama ay aad u bumbooniyaan isla markaana ay sheegeen in xidigaasi xidig mustaqbal leh uu yahay Manchester United ayaa loo sheegaya inay diyaar u tahay la sheegay inay diyaar u tahay inay iibiso xidiga qadka dhexe Scott McTominay laakiin dhinaca kale waxa la wararku ay sheegayaan leeyahay in kooxdu ay qandaraas cusub markaasi ay oo mushaarkiisu badan yahay ay u soo bandhigto 7 sano jirkaas maadaama ninkan uu yahay inuu wacdar badan ka dhigay daafaca da'da ee Barcelona ninka lagu magacaabo Michael Faye oo 19 sano jir ah ee usbuuca noqon doono xidig xulka Senegal ka soo jeeda ay la xirnaa kooxaha Bayer Leverkusen Manchester United iyo Inter Milan waxaa laga yaabaa xidigaas maadaama daa'ir uu yahay inuu wareego waxaa markaa warar kale la sheegaya Man City Liverpool iyo Chelsea waxay saddexda doonayaan xidiga qadka dhexe Newcastle oo u dhashay ninka la yiraahdo Brazil u dhashay waa Bruno Gomes oo 16 sano jir ah ay doonayaan inay soo iibsadaan Gomes waa nin aad halis u ah wax badan ka qabtay Newcastle intii uu joogay waana xidig lagu kalsoonaan karo ayaa leeyahay Bayern Munich waxay doonaysaa ayadana inay markaas go'aan ka gaarto daafaca bidix ee reer Canada Alphonso Davies kaas oo asagu dhammeeyay usbuuca soo socda go'aan ka gaari doono mustaqbalkiisa una badan tahay inuu Bayern Munich ka horeeli doono maadaama xidigan 23 jirka ah uu muddo aad u far badan Bayern Munich u ciyaaray waxa dhici karta marka inuu u wareego xagga dalka Spain waxaana aad markaas u doonayso naadiga Real Madrid oo markaas rabta ayada in markaa xidigaas ay la wareegto warar badan ayaa suuqa ka soo kordhay insha Allah halkan ay kula socon doontaan waxaana arki doonaa wixii warar oo suuqa ka soo kordho si joogto ah ayaad halkan Goal Sports kula socon doontaan barnaamijka share gareeya meel fogna gaarsiiya waxa la wixii xogtaada ama fikirkaada ama wixii aad u baahan tahay laga soo hadlana halkan ugu wadaagtana kulanteeda bixisa leh fi amanillah